الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله دمان ardayda kala duwan Somali Star Online Training casharadii kala duwanaa Lesson 34 buuggii conversationada ayaan weli ku guda jirnaa step by step ayaan casharadeen u qaadan doonaa Lesson 34 iyo Lesson 35 baan qaadan doonaa Lesson 34 waa conversation ama dialogue hadii aan waa wada hadal conversation waa wada sheekaysi. What is your name? A e B baan isu kala saaraynaa. Eena qof bay u taagan tahay, Bina qof bay u taagan tahay. What is your name? Magaca. My name is Jamac. Magacaygu waa Jamac. What about you? Adigana. My name is Abdi. Magacaygu waa Abdi. Do you have any nickname? Ma leedahay wax naanaysa? Do you have? Miyaad leedahay any nickname wax naanaysa? No, maya. I don't have any nickname. Wax naanaysa ma lihi. What is your father's name? Magaca aabaha muxuu yahay? His name is Ali. Waa Ali. What is your mother's name? Magaca hooyadaana. Her name magaceeda is Nadiifo. Waa Nadiifo. What is your grandfather's name? Magaca awowahana. His name magaciisa is Hussein. Waa Hussein. What is the full name of your teacher? Macalinka magaciisana oo dhammaystiran. My teacher's full name is Josbeth Abduqaadir. Waa Josbeth Abduqaadir. What Abduqaadir? What is the name of your school? Schoolkaaga magaciis. The name of my schoolkaaga magaciisa is Somali Star. Exercise-ka 5 exercise ama 4 exercise baan ka shaqaynaynaa. Answer ka jawaab. This question is su'aalahan. Su'aasha koowaad, what is the name of your grandfather? Magaca waa muxuu yahay? Su'aasha labaadna, what is the name of district you live? Deegaanka aad ku nooshahay magaciis. Su'aasha saddexaad, what is the name of Somali president? Sheeg madaxweynaha Soomaaliya. Su'aasha afaraad, what is the name of your older brother? Walaalka ka weyn magaciisa sheeg. Waa su'aasha afaraad, walaalka ka weyn magaciisa sheeg. Lesson 35 have iyo has. Read aqri the following sentences. Jumladahan soo socda. 1 waa wixii hal ah, money waa wixii badan. Have iyo hasna waa lahaanshihii bay u taagan yihiin. His baby cunugan yari ama cunugan has nice doll wuxuu haystaa boonbala fiican. The cat bisada has a long fish waxay haystaa kalluun dheer ama malaay xoogaa dherer leh. The chair kursiga has one leg wuxuu leeyahay hal lug. Iyadoo money ah badan. The babies ciyaalkan yar have a nice dolls waxay haystaan boonbalayaal fiican. The cat bisada have long fish waxay haystaa kalluun dheer. The chairs kuraasta have 4 legs waxay leeyihiin 4 lug. Marka has to be used waxaan u isticmaali doonaa has kaliya for one person or one thing. Hal shay ama hal baan u isticmaali doonaa has. Have-na waxaan u isticmaalaynaa have to be used waxaan u isticmaalanaa for more than one hal wax ka badan oo person qof ha ahaado or thing ama shay ha ahaado. Have-na waxaan u isticmaalaynaa wixii jamaca. Hasna waxaan u isticmaalaynaa wixii kaliya has iyo hasna saasaynu kala cadeynayaan ayagoo lahaanshiha ah. Lesson 36 buu kasii bilaabanayaa cashirkeena cashirka xiga. sidaa darteed fi amaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullah.